dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo xusay waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay maansayahanada Soomaalidu ugu xilan jireen kuwaas oo sariigta baqdinta hogatuska iyo qaar kaleba ay ka mid yihiin waxaan isla barnaamijkaas idinku maqashiiyay gabayo dhowra oo sarbeeban maansayahanadii tiriyeyna ay ula jeedeen haween ay qabeenoo midba ay si uun ku dhaliilsanaayeen markii ay doodahooda sarbeebta howinayeenna waxay raggaasi maanka ku hayeen dhaqanka Soomaalida oo in lagu ammaano laguna koolkooliyo mooye aan ogolaan jirin in si cadaan ah dumarka maansada loogu aflagaadeeyo taas awgeed waxay hal abuuradaasi ka cabsi qabeen ceebihii dumarka uga muuqday haddii ay tixahooda ku sheegaan in bulshadoodu ay ku qoonsato wixii dambe oo ay tiriyaanna ay dhagaha ka fariisato waxaa iyaduna jirtay gabyaaga Soomaaliyeed inuu kolkolka qaarkood fariimihiisa maanso habka sarbeebta ku dahaari jiray isaga oo markan ka baqaaya haddii aanu sidaas yeelin in laga digniin helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo dabadeedna ay dhexda ka kala jabiso waxay u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay dagaaladu jiraan inay soo ifbaxdo iyada oo gabyaagu uu ugu warrami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaagba yihiin taana aan ku tusaaleeyo tixaan ku tilmaami karo gabayada sarbeeban ee Soomaalida kuwa ugu caansan inay ka mid tahay marka horese sheekada la mariyay waxa la yiri laba qolo oo aan abtiriska ku kala fogeyn weligoodna darisay ahaa ayay colaadi ka dhex aroosantay sidii caadada Soomaalidu ahaydna qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nin doorka laga tilmaamo dagaalyahanka ugu geesisan sheekha ugu aqoonta badan deeqsiga la soo tamadiyo ee abaariga aaran aan guryihiisa lagu qadin aftahanka geedka hadalka ah ee maalinta garnaqsiga la isu hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro guud cadaaga taliyaqaanka ah ee markay arrintibataba kala furfura iyo qaar kale oo kuwaas la heer ah ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaay way ku faani jirtay waxay oran jirtay reer hebel waxaan ka dilnay mid ay dhabarka kaga jabeen mid aan loogu looca dhaafin mid uu gurigood ku ba'ay mid ay ku gablameen mid ay indhuhu kaga dhaceen iyo weerar lamid ahoo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay hadiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo si kastaba ha ahaatee muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska leynayeen geelal kala dhacayeen si walbana ay isugu qumayoobeen ayay waagii dambe kala daaleen dagaalkii kafoolka ahaa ayaa hakaday markaas bay bilaabeen inay gaalmo isku aa'aan dhabayaasha lagu sadcaaro iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la oran jiray Xasan Khalaf iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha ugu garaacayay ay dibnihii googo'een waxaa la oran jiray Nuur Cilmi waa aardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay midood Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu galabtaas si weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaada foolka Nuur Cilmi ka muuqda shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awal ma uu hubine galabtaas bay u cadaatay goor ay noqotaba inuu Nuur cid gaba wari doono kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono la kala carow oo labadii midba reerkiisa u dheelmay hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna iliya baaris ma u saarin walwal iyo wahan arrin qora ku saabsan asii markay kala tagayeen aanay ku ballamin ayaa gama u diiday Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira in adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo Xasan Bidde isaguna wuxuu wadnaha farta uga hayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin mid goray cawsha iyo garow nuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga
xila irmaaneys geesigoodii dhawaanta lama kalay aan sina ugu dhigmi karin markaas buu goor ay saqdhaxa tahay intuu salmigii u fariistay gabay bilaabay gabay sarbeebanoo uu nuur cilmi ku hoga tusaayo wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami karo oo keliya inuu warmaha ka casaysto isaga oo u dan leh mid ay wada garanayeenoo haddii uu u gacan garo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo tixdii uu xasan bidda nuur cilmi kula ballamayna waxay ahayd nin gabraarsadaa nuur cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibiya waayeena ilaahba uu gembii tuu guddoonsaday reerkeennu gaajada usqabo goolma kaafiyo ee gengeyn wax naagaha ku tara hayna soo gelinee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayin dayrkii la soo goday biciid gees labaa degaye nin hadlaa u soo galay ma gana gorayo cawleede goodkiiyo abeesada maskaa geeri kaga roonay laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkoode garanuugta yaan laygu layn guran magoolkeeda gabaygaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna nuur cilmi wuu ku dhaqmay intuu ku duxay wuu ku camal falay dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasan biddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacayay yeelkeede sarbeebtu maansada oo qura kuma timaadee tiraabkana way ku timaadaa sidaa darteed waxay soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin daboolan oo ama isxujaysi looga dan lahaa ama dana kale laga watay waxaana ka mid ah tanaan haddeerba idiin soo gudbin doono waxaa la yidhi barbaar soomaaliyeed ayaa beri xeraystay dhulkii reerkoodu deganaa dhul ka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray halkaasoo uu aqoon diineed ka helay ha yeeshee ay gaaja ku dubatay sida badanaa xer cilmigii hore ku dhici jirtay dharaartii dambe ayaa halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray niman safarahoo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid dhowaanna ku noqon doona maxaad aabbahaa noo faraysaa ayay xerowgii ku yidhaahdeen markaas buu ku jawaabay wax kale idiin fari maayee haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan wiilkaagii 5 salaadoodba weyse qura ayuu ku tukadaa weedhaa sarbeebta lagu dahaaray inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay kolkaas buu isaga oo yara murugaysan nimankii ku yidhi wiilkaygii gaajuu sheegtay bal carraduu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara qumba subaga oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hilba kumbis ah oo 30 cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa oo halkuu wiilkiisu xarta ka ahaa mar kale ay awrtu ugu rarayd wuxuu ku yidhi alaabtan wiilkayga u geeya waxaadna ku tidhaahdaan aabbaha wuxuu ku soo yidhi bishu waa 30 balliguna waa buuxaa nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayeen ayay subagii iyo hilibkiiba intay wax uga baahdeen qayb ka cuneen dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi niman yahow aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu 30 cad ahaa qumbuhuna uu afka hayee maxaa talow kala dhantaalay fariimihii daboolaa ee odayga iyo wiilku isdhaabsadeen soo kolkaa lama ay ashqaraarin dabadeedna intay yaxyaxeen soo wixii ay faleen ma dafiri waayin waa sarbeeb waa hadal qarsoonoo dadka oo idil furfuridiisu aanay u wada fududayn murtidiisa iyo farshaxanimadii lagu falkiyeyna ay soo baxda uun kolka dabo